بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولا لها سوالف ميل الجوكتان بقى waxaan jecelahay inaan wax yar fikirkayga ku darsado taladayda ku darsado buuqan xaragjiidkan siyaasadeed oo ka dhaxeeya wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Puntland horta marka hore waxaan hoosta ka xariiqayaa waxaan ahay qof ka soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada waddanka Ingiriiska 4 sano oo primary school ah 5 sano oo secondary school ah waxa la ii tababaray oo aan training u qaatay waxa la yiraahdo duty of care waxbarista kaliya ma aha inaad ilmaha wax bartid laakiin inaad qulubtooda ilaalisid inaad himiladooda ilaalisid inaad hankooda ilaalisid inaad inspire garaysid oo dhiirigelisid oo aad kobcisid oo aad qulubtooda wax alaalo dhaawici kara aad ka ilaalisid waxaan aad uga xumahay wasiir goodax waa markii saddexaad oo arintan ka hadla hadaan qaldanayn ama waa markii labaad oo statement saxaafadda ka soo saaro asagoo ka jawaabaya baaqyada Puntland ka soo yeeray mar raba inaan dhex galo khaladka iyo saxda iyo waxa la isku haysta iyo shahaadada ma leeyahay iyo ma leeyahay waxaan kaliya taas ka oranayaa in my humble opinion manhaj midaysan imtixaan midaysan buu dhalaa taasaa sii dhali karta shahaado midaysan laakiin aniga midda aan ka soo horjeedo oo aan aadka uga xumahay waa kumanaanka dhalinyarada meel walba ay joogaan codkoodii baan ahay aniga la kulmay iskuulaadka ugu tagay muqdisho ugu tagay buuhoodla ugu tagay baydhabo ugu tagay garow ugu tagay boosaaso ugu tagay waa waajib muqaddas saaran as father aaba ahaan dhalinyaradaas aan indhahooda arkay oo soo fiiriyay aad waxaan uga xumahay inay noqdaan wax la isku tuurtuuro wasiir goodax wuxuu ku feel garoobay inta uu faroola iyo hebel u jawaabayo waa wasiirkii waxbarashada ummadda Soomaaliyeed inuu toos inta kaamirada ula hadlo uu baaq u diro ardayda soo koraysa u bixi brito oo u muuqdo wasiirkoodii waxbarashada inuu yahay oo uu inspire gareeyo oo uu u sheego oo uu qulubtooda hubiyo oo dhaho wax walba oo khilaaf way dhamaanayaan waxbarashadiina wata shahaadadiina waad heli doontaan yoolkiina hiigsada hankiina yu jabin awlaadayadii baa tihiin wasiirkiinii baan ahay Mr. Goodax taas ayuu ku feel garoobay absolutely waana condemn garaynaya wuxuu ka booday waajib gooliye inuu ka saaran yahay job description-kiisa inay ku jirto inuu qulubta ardayda Soomaaliyeed ilaaliyo inta uu isleeyahay Mr. Goodax faroola iska celi ama nin asaga iska celi waxa ku dhex dhimanaya waa carruurtii Soomaaliyeed ee Puntland mas'uuliyiinta Soomaaliyeed laftigooda faroola wali waa ku amaanaya asagu taas wuu gartay baaqiisi ugu dambeeyay waalidka iyo carruurtaba baaq buu u diray iyo reeraha ay arintaas saameysay laakiin wasiir goodax oo ku feel garoobay waxaan leeyahay xarig jiidka siyaasadeed ee muqdisho iyo garowe ka dhaxeeya mar rabna inuu qalubta ka jabiyo oo dhaawaco dhalinyarada Soomaaliyeed leaders baatiin hogaamiyaal baatiin sort gareeya khilaafkan yarka idin dhex yaala halkeena rag ba alla idin ka dhigay laakiin mid walba inta makrofanada xirxirto oo TV-yada soo fariisto yaan kubadda dhinaca kale loo laadin Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan leadership garan kara tanaasuli kara fikri kara asagoo eegaya bigger picture qulubta carruurta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed Puntland arintan qusayso waxaan leeyahay adeer gacaleeyaal waad guuleysanaysaan waxbarashadiina ha qaquusanina qalinka ha dhiganina keep learning keep going khilaafka wuu dhamaanaya mas'uuliyiin baad leedihiin dawlad baad leedihiin dal baad leedihiin odayaashana waa heshiinayaan haddii heshiinayaan annaga qorta ka soo qabanayna insha Allah guushana way imaanaysaa keep learning baan leenahay sky is the limit meeshaad rabtaan baad gaari doontaan niyad jab inuu idin ka dhaco ayaan ka soo horjeedaa anigu oo ay dhalinyarada ku kalifto goodax barro uu ku feel garoobay inuu fahmo inuu istiijidkaas ay keeni karto dhalinyarada inay iskuulaadka isaga haraan oo faldiinbiyeedka iyo daroogada qaadka iyo qashinka ay bartaan statementida noocan oo kale ayaana waxaas oo kale keeni kara yaan la dhabar jabin baan leenahay ee hal dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa walaalkiin Abuukar Cawaale wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.